galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamka waa 7 bisha September qodobada barnaamijkan galabta aynu ku faaqidi doono waxaa kamid ah kumanaan banaanbaxyaal ah oo weeraray guriga ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil oo ka degan yahay magaalada Jerusalem waxa ayna banaanka gurigaasi iyo weerarka intii uu socday ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha uu u maqan yahay haddii ay wax ku dhacaan dadka maqan ee gacanta kooxda reer Falastiin ku jira waxaanu falanqayn ku sameynaynaa weeraradan habeen iyo maalin ku sii kordhaya ra'iisul wasaaraha iyo isaga oo sheegay in habeen iyo maalin nafsadiisa uu u baqayo waxaan sidoo kale barnaamijkan aynu ku falanqayn doonaa ehelada dadka maqan ee gacanta kooxda reer Falastiin ku jira ayaa soo saaray warbixin cusub oo muujinaysa in dhammaan lahaystayaasha kooxdan reer Falastiin inay keeneen goobaha dagaaladu ay ka socdaan ee magaalada Gaza ka hor inta aysan ciidamada militariga ee maamulkaasi aysan qaadin duulaan 60,000 oo askari ay ka qayb galayaan maxay tahay ujeedka ay kooxdan hadda lahaystayaashu ay u keenayaan goobaha dagaaladu ay ka jiraan falanqeyn ayaanu ku sameyn doonaa waxaan kaloo barnaamijkeenu ku eegi doonaa kooxda reer Falastiin ayaa mar kale neefta ku celiyay militariga maamulka Israa'iil markii laba gantaal oo laga soo tuuray Gaza ay ku dhaceen gudaha deegaanada maamulkaasi Israa'iil waxaan kaloo barnaamijkan aynu ku falanqayn doonaa galabta warbixin dheer oo ka hadlaysa askartii ciidamada keedka ee dhawaan militariga maamulka Israa'iil oo u yeeray si magaalada Gaza loo geeyo waa tii ay diideen maantana waxa la soo warinayaa in askartiiba ay ka qayb galeen banaanbaxyada looga soo horjeedo duulaanka magaalada Gaza waxa ayna weerareen xisbiyada xafiisyadooda iyo guryihii madaxda maamulkaasi waanu eegi doonaa magaalada Londonna booliisku waxa ay xireen in ka badan 400 oo banaanbaxyaal ah oo taageerayay reer Falastiin kana soo horjeeday dagaalka magaaladan Gaza ka socda qodobkaasina qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu uga hadli doonaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir waxaanu ka hadalnaa dhacdooyin kuwan la mid ah oo caalamka ka taagan marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa kumaniyaal banaanbaxyaal ah ayaa isugu yimid banaanka guriga ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil oo ka degan yahay magaalada Jerusalem shalay gelinkii dambe ilaa xalay fiidkii ay halka joogeen waxaana banaanbaxaasi soo abaabulay qoysaska dadka maqan ee gacanta kooxdaasi reer Falastiin ku jira waxa ayna banaanbaxyadu ay muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan siyaasadda ra'iisul wasaarahan iyo sidoo kale qorshihiisa ku aadan in dagaal kale oo cusub magaaladaasi lagu qaado iyo sidoo kale halista ay sheegeen inay ku sugan yihiin 48 lahaystayaal oo la aaminsan yahay in ay weli nool yihiin oo gacanta kooxdaasi ku jira militariga ayaa si hordhaca waxay u soo galeen guriga iyo sidoo kale xaafadii uu deganaa ra'iisul wasaaruhu waxa ay dabcan difaacayeen in ra'iisul wasaaruhu aysan wax dhibaato ah la kulmin maadaama banaanbaxyaashu ay aad u cariisnaayeen waxay sidoo kale ku baaqayeen in laga joogsado dagaalkan magaalada laga soo baxo shacabkaasi loo ogolaado in ay noolaadaan banaanbaxyaashu waxay dabcan ay ku soo baxeen buundada Jordan la yiraahdo oo u dhow albaabka laga soo galo magaalada Jerusalem kuna sii jeeda guriga ra'iisul wasaaraha oo ku yaala wadada Aza la yiraahdo iyagoo sita boorar ay ku qoran yihiin dawladda hooska dhimashada ama dawladda dhimashada ka shaqeysa waxayna ku dhawaaqayeen maxay weli u joogaan magaalada Gaza may ka soo tagaan halkaasi haddaba erayadii iyo hadaladii ay halkaasi banaanbaxyadu ay ka jeediyeen waxaa kamid ahaa haddii ay wax ku dhacaan dadkan maqan ee kooxdaasi gacanta ugu jira adiga ayaa ra'iisul wasaare u maqan dad aad u tiro badan ayaa dabcan ku sugnaa mudaharaadyadaasina ka qayb galayay sidoo kale mudaharaadyadu kaliya kama aysan dhicin Jerusalem iyo sidoo kale Israa'iil xitaa waxa banaanbaxyo ay ka dhaceen fagaarayaasha waaweyn ee dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris halkaasoo dabcan isagana banaanbax kale lagu qabtay sidoo kale banaanbaxyadu waxay ka dhacayeen meelo kala duwan oo ka tirsan Yurub xitaa magaalada London ayaa banaanbax u ka dhacay oo weyn in ka badan 425 qof ay booliisku ay xireen kuwaasoo iyaguna taageerayay shacabka reer Falastiin marka shalay banaanbaxyadu waxay isa soo qabsadeen Israa'iil ilaa Faransiiska ilaa iyo sidoo kale magaalada London oo London ayaa ugu darneyd oo 425 qof ayaa xabsiga la dhigay oo booliisku ay xireen cadaadiskan weyn
ayaa dabcan waxa uu qayb ka yahay hanjabaadaha habeen iyo maalin ee loo dirayo ra-iisul wasaarahan iyo xubnaha qoysaskiisa iyo sidoo kale xubnaha dowladiisu. sidoo kale hanjabaadahan keliya ee gudaha Israa'iil kama socdaan, banaanka way ka socdaan, Gaza way ka imanayaan, Yemen way ka imanayaan, meel qaada ayuu leeyahay. toddobaadkii lasoo dhaafayna shirkii golaha wasiirada meeshii lagu qabanayay waa laga bedelay oo meel aan la garanaynin oo dhulka hoostiisa ayaa la geeyay, cabsi laga qabo in ay dabcan ay beegsadaan ra-iisul wasaaraha oo ay dilaan. ra-iisul wasaaruhuna waa tii toddobaadkan uu sheegay habeenii maalin in nafsadiisu uu u baqayo oo ay ku socdaan weeraro kaga imanaya banaanka iyo gudaha. bal qaybta hoose commentiga waxaa noogu reebtaa ra'yigaaga. banaanbaxyaashan weeraray guriga ra-iisul wasaaraha ee Jerusalem, banaanbaxyadan ka dhacay Paris ilaa iyo London, iyo sidoo kale in ay jiraan habeen iyo maalin in ra-iisul wasaaraha uu sheegay in nafsadiisa uu u baqayo oo uu ka baqayo in la dilo. qaybta hoose commentiga ra'yigaasi noogu reeb. qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu u galaynaa. waxaa daawadayaal soo baxaya warbixin cusub oo muujinaysa in la haystayaasha maqan eheladooda ee banaanka jooga ee Israa'iil jooga ee banaanbaxaya inay hadda soo saareen warbixin. gaar ahaan waxaa soo saaray warbixintan qoyska la haystayaasha kale ah Alon Ahlan iyo Guy Gelid Dalool ninka la yiraahdo. waa laba qof oo la rumaysan yahay in labaduba dhowaan la geeyay magaalada Gaza, waxaana kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin la aaminsan yahay in labadaasi qof ay keeneen goobaha dagaaladu ay ka socdaan ee Gaza ka tirsan, gaar ahaan Khan Yunis iyo sidoo kale Zaytuun iyo xaafado kale oo Gaza ka tirsan. ujeedka loo keenay ayaa waxa ay tahay baa la yiri maskax iyo dagaal siyaasadeed iyo dagaal maskaxeed kooxdan reer Falastiin ay ciyaarayaan, taasoo ah in lagu joojiyo duulaankan 60,000 askari ka qayb qaadanaya ee Israa'iil hadda soo diyaarinayso ee ku aadan inay magaaladaasi Gaza ay kala wareegaan. qoysaska la haystayaashan labadan wiil waxay sheegeen in labadaasi qof la keenay xaafadaha dagaalada qaraar ay ka socdaan, taasoo ah fariin loo dirayo qoysaskan inay cadaadiyaan dowladda kana joogsadaan dagaalada ay ku hayaan magaaladaasi Gaza. haddaba warbixintan ay soo saareen qoysaskan labada ah waxay kaloo ku sheegeen in caruurtoodu ay halis weyn ku jiraan, islamarkaana aysan halkaa ku badbaadaynin maadaama militarigu ay burburin ay ka bilaabayaan halkaasi oo ay doonayaan inay duqeeyaan. sida laga soo xigtay kanalka 12 la yiraahdo, taliyaha militariga ayaa sheegay in uusan wax walba oo dhacaba dagaalkaasi la galo oo la burburiyo Gaza xoogna lagula wareego, wixii geeriyoonayana hadhintaano, wixii kalena intii nool waa la arkayaa ayuu siyaasad ahaan isticmaalayaa, waana qorshaha ra-iisul wasaaraha maamulkaasi. marka isku soo duub kooxdan ujeedka ay ka leedahay dadkaasi la haystayaasha ah ee labada ah inay furumaha hore ee dagaalka ay ku hayaan waa qidad dagaal oo ay doonayaan in Israa'iil ay ku joogsato ehladuna ay dabcan ay cadaadis ku saaraan dowladdu inaysan dagaalkaasi ku sii socon maadaama dadkaasi ay halis ay galayaan. qaybaha kale ee barnaamijka aynu eegno laba gantaal oo waaweyn oo laga soo tuuray marinka Gaza oo ayaa dabcan wuxuu ku dhacay gudaha deegaanada maamulka Israa'iil. militariga war ay soo saareen ayay ku sheegeen mid kamid ah gantaaladaasi militarigu waxa uu sheegay in la qabtay halka kan labaadna uu ku dhacay meel dad fara badan ay ku nool yihiin oo reer Israa'iil ah. waa markii ugu horeysay oo gantaal laga soo tuuro Gaza muddo 3 toddobaad gudahood. madaafiicdan ayaa waxa ay dabcan ay ku dhaceen deegaano xuduudda ku yaala. militarigu way qarinayaan ilaa iyo hadda wax khasaare ah inuu ka dhashay, laakiin kooxaha gurmadka degdega ah ee ku sugan xuduudda ayaa sheegaya in khasaare xooggan uu jiro. tirada rasmiga ah geerida iyo dhaawacyada lama yaqaano, laakiin waa markii ugu horeysay 3 toddobaad in madaafiic laga soo tuuro magaalada Gaza oo dhinacan iyo Israa'iil ay ku soo dhacaan. madaafiicdu markii hore ama 3daasi toddobaad waxa ay ka imanayeen wadanka Yemen, laakiin Yemen hadda waxay u muuqataa in la yiri nasta anaga ayaa markan shaqadeenu qabsanayna oo reer Yemen ay leeyihiin. marka madaafiicdaasi aad bay khasaare kala duwan u geysteen, militarigu way qarinayaan. waxa la filayaa saacadaha soo aadan in dadka rayidka ah iyo warbaahinta madaxa bannaan ee magaaladaasi jooga in ay soo saaraan war rasmi ah oo ku aadan dhacdadaasi. bal daawadayaal qaybta hoose ee commentiga ra'yigaaga noogu reeb in reer Yemen iyo sidoo kale reer Falastiin miyay isfahamsan yihiin, miyay koox leedahay 3 toddobaad annaga ayaa duqeynayna, kooxna leeyihiin 3 toddobaad kale annaga ayaa duqeyntaasi geysanayna, mise waa un wax isku soo aaday oo marba koox ayaa weerarka soo qaadaysa. qaybta hoose noogu reeb. daawadayaal markan waxaanu gudaha u galaynaa warbixin kale oo cajiib ah oo ka faaloonaysa
in dhowaan aynu ka soo hadalnay in militariga maamulka Israel ay 60,000 oo askari oo keedka ku jira ay u yeereen si loo geeyo magaalada Gaza waa tii xeriyihii ciidamada lagu diyaarinayay ay ka dhaceen arrimo cajiib ah markii kumanaan ka mid ah askartii keedka ee loo yeeray ay diideen in magaalada Gaza ay aadaan oo ay ka soo dagaalamaan shalay warbixin kale oo cusub ayaa soo baxday marka oo sabti ahayd askar ka tirsaneed kuwii ciidamada keedka ay dhawaan loo yeeray ee diiday inay ka qayb galaan dagaalka magaalada Gaza ayaa waxa ay shalay oo sabti ahayd ka qayb galeen banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacayay Israel askartii keedka ee cutubyo badan ka koobnaa oo dabcan ka qayb galayay banaanbaxyada ayaa waxa ay dabcan weerareen xarumaha saldhigyada booliiska ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale caasimadda maamulkaasi waxa ay muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan in dabcan ay dagaalkaasi ay sii socdaan askartan keedka ahaa ee shalay banaanbaxyada ka qayb galayay dabcan banaanbax caadi ah oo kaliya maysan dhigin waxa ay weerareen oo isugu yimaadeen banaanka guriga wasiirka waxbarashada ee maamulkaasi Yus Kish ninka la yiraahdo kaas oo degan bartamaha Israel gaar ahaan deegaanka Hod Hashron la yiraahdo banaanbixii shalay oo sabti ka dhacay wuxuu ahaa banaanbax ballaaran oo meelo kala duwan ka dhacay waatii aan ka soo hadalnay in guriga ra'iisul wasaaraha ee Jerusalem ku yaala banaankiisa la sugu tagay halkaas lagu banaanbaxay sidoo kale xubnihii golaha wasiirada mid kasta gurigiisa koox ayaa ku banaanbaxaysay laakiin waxa ugu yaabnaa in askartii keedka ay ku hor banaanbaxaan oo ay weeraraan guriga wasiirka waxbarashada ee maamulkaasi ee bartamaha Israel ku yaala haddaba shalay waxa kale oo ay ku beegneed 700 oo maalmood oo uu socdo dagaalkan marinka Gaza iyo 700 oo maalmood oo uu ka soo wareegay dagaalkii dhacay ama weerarkii dhacay 7 Oktoobar 2023 booliisku waxa ay ku eedeeyeen banaanbaxyadii askartii keedka ahaa iyo dadkii dawladda u shaqeynayay mid nidaam darro ah oo ka hor imanaysa nidaamka ciidamada iyo sidoo kale nidaamka maamulkaasi ee xagga difaaca bal mar walba ogow haddii banaanbax ama maamul dagaal uu galo dagaalkaasi uu kusoo guuldaraysto ama uu muddada uu ku dheeraado askartu badanaa inay kusoo noqdaan magaalada iyo waddanku khatar bay tahay sidoo kalena burburka maamulkaasi ayaa ay calaamad u tahay laakiin hadda in ciidamadii keedka ay keedka ka soo baxaan oo ay banaanbaxaan guryaha madaxda maamulkaasina ay weeraraan dabcan waxay diraysaa fariin kale in waayihii Netanyahu iyo maamulkiisu ay soo dhamaadeen oo ay markan dadkii shacabka ahaa ay ku gacan sareeyaan marka loo fiiriyo dalabaadkooda ku aadan in dagaalka xasuuqa banaanbaxa dhibaatooyinka doodaha iyo cabiidka intaba ay joogsan doonaan ogow maxkamadihii caalamku way baadagoobayaan madaxda maamulkaasi gudahana banaanbaxya uga socda cabsi xoogan iyo walwal weyn ayaa isu biirsaday ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale maamulkiisa bal qaybta hoose ee commentiga noogu reeb ra'yigaaga sidaad u aragto qodobadii aan ka soo hadalnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ha iloobin inaad subscribe saarato si aad u hesho macluumaad kuwan lamid ah oo caalamka ka taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal galab wanaagsan